waa 7 jir dunidu u aqoonsatay duuliyaha ugu daadaya la adduunka qaatayna darajada afraad ee kabtanka bayloodnimo inta aanan u galin muuqaalka fadlan nagu soo biir like saar oo shirkale muuqaalka waxay dad badan aaminsan yihiin in maskax badnaanta iyo damiinimadu ay tahay wax dabiici ah oo la kala dhaxlo laguna dhasho balse waa fikrad qaldan oo boqolkiiba 50 been ah xaqiiqada ayaa ah in qofka bini'aadamka ah aanu si dhammaystiran ugu dhalan maskax badnaanta ee uu boqolkiiba 90 kasbado oo shaqaysto tusaale ahaan haddii ilmo yar oo maskax badan la ciyaarsiin waayo wax la bari waayo oo laga farxin waayo ama deegaan aan dhaqan fiicnayn lagu kariyo waxa imanaysa in ilmaha yar ay maskaxdiisu dib u socoto ilaa uu damiin ka noqdo anu galo sheekada ee wiilkan yar waa Graham Shima waa 7 jir u dhashay dalka Uganda oo ay dunidu u aqoonsatay duuliyaha ugu daadaya leh waa wiil leh hal abuur iyo maskax sarreysa waxaanu kaligii 3 jeer oo xiriir ah hawada ula kacay nooca diyaaradaha yaryar ee loo yaqaano Cessna 172 sanadkiina dhaafay 2020ka waxa uu ku guuleystay oo la siiyay darajada kabtanimada tani ayaa tusaale u ah dhalinyaro badan oo ahaan ka weyn Graham waana sheeko ugub ah waxa uu ku hameeyay inuu noqdo duuliye caalami ah iyo cirbixiyeen ka dega Mars sheekadiisa ayaa ka soo bilaamatay isaga oo jira 3 sano kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin booliska dalka Uganda oo joog hoose ku socotay ay ku soo dhacday guriga wiilkan awowgii waana halka uu dareenka iyo xiisaha bayloodnimo uga bilaamayso wiilkan caadiyan shaqada bayloodnimo waa mid aad u adag oo xataa barashadeedu leedahay shuruudo adag waana shaqo aanay qaban karin dad badan oo xulashada shaqaalaha ayaa ah meesha ugu khatarta badan waxaana jirta in qofka lagu xusho dhererkiisa caafimaadka indhihiisa iyo guud ahaan jirkiisa waxaana la ogol yahay ragga in aanu ka gaaban dherer ahaan 1.70 waana shaqo inta badan nasiib ah balse Graham Shima ayaa rajo fiican ka qaba inuu noqdo duuliye caalami ah oo u kala goosho dunida ugu dambeyn mucda sheekada ayaa ah in waalidku yahay warshada kaliya ee soo saarta wax bulshada ka farxiya iyo caalamkaba guusha wiilkan daada yarna waxa ka dambaysa hooyadii oo ilaa markii uu 3 jir ahaa la garab taagneed taageero iyo barid